Asalaamu calaykum daawadayaal waa Shubaal Media waxaa halkan idinka soo gudbinaynaa garoomada Qatar ugu talagashay in ciyaaraha kubadda cagta ee dunida lagu qabto 2022 garoomadaas halka ay ku kala yaalaan iyo qaadkooda yaala deegaanka Al Rayyan waxaana uu qaadaa 44,740 isagoo la aasaasay 2001 ilaa 2005 garoonka isna Khalifa International Stadium waxa uu isna ku yaal Al Rayyan waxaana uu qaadaa 40,000 oo qof Al-Janoub Stadium oo ku yaal isna degmada Al Wagra waxa uu qaadaa 40,000 oo qof Al-Tamam oo isna ku yaala Doha waxa uu qaadaa 40,000 isagoo la aasaasay 2017 Ras Abu Abud waxa uu ku yaal isna Doha waxaana uu qaadaa 40,000 oo qof 2018 ayaa isna la aasaasay Al-Bayad oo isna ku yaala Al-Khar waxa uu qaadaa 60,000 oo qof isagoo ah kan labaad oo ugu weyn garoomada ee Qatar diyaarisay ciyaaraha adduunka waa Lusail Iconic oo ku yaala Lusail waxaana uu qaadaa 80,000 oo qof waana garoonka ugu weyn ee Qatar